waxaa xaflad qalin jabin ah loo qabtay ardayda markaska Al-Furqaan ee ku yaala galbeedka magaalada Pretoria ee wadanka Koonfur Afrika. Dufcadani oo ahayd midii toddobaad ee ka qalin jabisay markaska Al-Furqaan ayaa waxaa maanta wajiyadooda laga dheehanayay farxad kadib markii ay dhammaysteen barashada culumta diinta Islaamka. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiinta ardayda, qaar ka mid ah jaaliyadda Koonfur Afrika, macallimiinta iyo waliba maamulayaasha markaska. bandhiga ardayda ayaa ahaa mid cajiib ah. وأنا أيضا أقول كوبات سورة البقرة. The first chapter to come down in the Quran is علق وإقرأ. The last أظهر ودمت غير غارس يا أجمل المدارس ودمت غير غارس أزو 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 يعلو جناحي إذا رأيت قلبي يسمو نجاحي. Doctor, there's someone here sick. Please come. Okay, I'm coming. Oh dear, what happened? My stomach and my head is paining. Doctor, please help me. Doctor. maamulka markaska ayaa ka waramay taariikhda markaska Al-Furqaan waxayna sheegeen inay dadaal ku bixiyeen barashada culumta diinta Islaamka. ربنا نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أدبان السلام على والدينتا يا مرتشرفك يا دمان أنت ما تكسر مدرسة الفرقان الإسلام. مدرسة الفرقان الإسلام حالها أساسي 2012 كي runtii xilli badan ayay shaqaynaysaa miraheedana maanta waad arkaysaan oo waan ka gurannay oo waan ku faa'iidnay markii la asaasayay intaan maanta meesha fadhiday iyo dadka xafladda ka hadlahayo maxaa la yiraahdaa marka daadejinayo oo siirada ka warramayo oo quraanka ka warramayo maysan dhalanin intooda badan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayaan leenahay. sidoo kale waalidiinta marti sharafka kale ayaa bogaadiyay kaalinta waxbarashada ee markaska. Cabdirashiid Xuseen Karaash, raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, magaalada Pretoria, dalka Koonfur Afrika.